السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بأكاديمية كابح لدراسات اللغة العربية. waxaad ku soo dhawaataan darsigii 13aad ee kitaabka isticmaal العربية بسهولة. darsigan waxaan ku bari doonaa cibaaraatun xawla taariikh. darsi aad u fudud weeyaan, muhiimad gooniyana leh qofka yacni carabiga iyo danaynayo. taariikhdan ku baranaynaa. taariikh markaad maqasho adigu waxaad u fahansanta uun midda miilaadiga iyo hijriga inay jiraan bis. bilo kaloo caalamiya jiro ayagiyaan baranaynaa, waana qofka yacni waxaan u dhigaynaa ha ogaado ayaan kuugu dhigi oon meeshaana kuugu soo qoray. ma taariikhu lyowm, maanta taariikhdu waa imise. intaanan ka jawaabin waxaad barani ashuhuur almiilaadiya washuhuur shamsiya, kadibna bilihii muslimiinta raaci doonaa. الشهور الميلادية وبلاه ميلادية يعني وحنا لو نسبيي ميلاد عيسى عليه السلام أي نسبيان وانا كريستان وجد وكريستان قال ذان كريستان كاستعمال جري عمر مركو أركينا إن قالوا استعمال سو واسقة تجي بشان هجرية وقبلاوي ولا قبلاوي النبي عليه الصلاة والسلام مركو هجرودي bisha muslimka laga soo qabtay. bishaasana waxa lagu xisaabi jiray diiwaanka muslimiintana iyada ku qorneed wixii ka dambeeyna muslimiinta iyo dowladii islaamka soo maray dunida. bishaas oo muslimiinta yacni ashuhuur alhijriya ayay isticmaali jireen. miilaadiga iyo shamsiga ayaa jiri jiray waagayaan garab socday ilaa iminkana jira. hadda weliba caalamka waxaa ku xoog badan miilaadiga ku xoog badan. wadamada muslimiinta badankood miilaadigaas haysto. marka waa inaad wax ka barataa miilaadiga iyo kuwa la yiraahdo shuhuur shamsiya oo aad ku arki doonto janaalada carbeed oo waaweyn sida MBC, Aljazeera iyo kuwa aad ku arki doonto. maadaama marka yacni muhiim ay tahay waxaan jeclaystay inaan cashirkan idinkula wadaago bilihii, mana damba kugu soo laaban doonaan bil magaceed. waa saa ku baratay. waxaan bilaabi doonaa miilaadiga, kadibna shamsigan ku xiji doonaa, kadibna muslimiinta. yunayr ayaa ugu horeyso, waa mid ay dhahaan ingilishka January aa lagu dhahaa yunaya, carabiga yunaya aa loo qoraa, Januaryna waa lagu dhawaaqaa. kanuun thani waa shuhuur shamsiya, bisha ku aadan oo koowaad. muxaramna waa bisha muslimiinta oo soomaalidu ay dhahaan seko. yunaya waa marka yunaya, kanuun thani, muxaram, saas iskugu aadan yihiin. waa intaas waa bisha koowaad. bisha labaad aan u gudubno February aa ingilishka lagu dhahaa, carabigana saasaa loo qoraa February. waana miilaadiga. shubaat waa yacni shamsiga. safarna waa carabiga ama muslimiinta oo dhan bishaasay iska leeyihin. shubaadaa ku aadan. muhiimaduna waa inaad shubaad ogaataa. waxaad arki doontaa aljaziira alcarabiya ama janaalada jasiira oo carabiga ku baxa. ninka wariyaa isagoo dhahayo alyawm ataariikh alkhamis min shubaat asoo dhawaad arki. yacni waa ina fahansantahay shubaad inay bil tahay. jedido mustalaxaadka waxa lagu iyo bilaha iyo waxa lagu baraa maxay tahay si aadan qaladka ugu dhicin. waxa aan hadda yacni nagu qasbay inaan bilihii intaan si jadwal u qorno saddexdii bil isgarab dhigno, waa hadhowdi si aadan qalad ugu dhicin adoo carabigii yaqaana. taawi February waxaa ku aadan shubaat, waxaa ku aadan safar, bisha labaad. marsa waa bisha maris, saas carabiga loo qoraa, waa march ingilishka. marsana waa af soomaaliga. waa miilaadiga. intaas dhawaqa un baan sixi. aadaar ayaa ku aadan oo shuhuur shamsiya, bisha saddexaadna loo yaqaan. rabiicul awal ayaa ku aadan bilaha muslimiinta. abriila ku xigto, iyadana nisan la lamaanan oo ah shuhuur shamsiya. bisha kale oo yacni muslimiinta ku aadanna waa rabiicu thani amba rabiicul aakhir. abriil, nisan, rabiicul thani waa isku aadan, waana bisha afraad. maayo bisha shanaad weeye. shuhuur shamsiya waxaa ku aadan oo bisha shanaad u ah ayaar. bilaha yacni waxaa weeyaan oo muslimiintana waxaa ku aadan jamaadul ula. waa ka yuuniyo. inta kale carabiga iyo ingilishka way iska lahaayeen, laakiin yuuniyo iyo yuuliyo ay iskaga duwan yihiin. yuuniya iyo yuuliya soomaaliga ku raacay. yuuniyo waa June, yuuliyana maxaa waa July. soomaaliguna wuxuu ku khilaafay yuuliyo ayuu carabiga ku khilaafay. meesha yuuliya oo dhahayo carabiga, soomaaligu luuliya oo dhaha luuliya.
luuliya kowda luuliya waata maqashay waa soomaali caani ku tahay marka yani dhawaq un bay kala duwan yihiin laakiin waa isku meeshii june iyo july weye yuniya waxaa ku aadan xuseyran bil la dhaho jamaadu thani ayaa ama jamaadul aakhir ayaa muslimiinta ugu aadan oo ah yani bisha lixaad yuliyo waa july bisha july weeyaan tamuuz ayaa ku aadan bisha muslimiintana waa rajab augustus ab shacbaan ayaa isku aadan bisha sagaalaad wey augustus bisha shuhuri shamsiya ku aadan waa ab shacbaan ayaa muslimiinta ugu aadan waana bisha sideedaad September waa bisha sagaalaad ayluul bisha shuhuri shamsiya ku aadan waa ayluul muslimiintana ramadaan ayaa ugu aadan oo ah bisha sagaalaad dhammaan waxaan sheegaynaa waa bisha sagaalaad shuhuri shamsiya ayluul ayaa kuugu muhiimsan iyadaana kugu cusub October tashriinul awwal ayaa ku aadan oo bisha 11aad shawaal ayaa muslimiinta ugu aadan gaaladana October November iyadana tashriinu thani ayaa ku aadan dhulqicda ayaana yani waxa weeyaan iyadana ku aadan bisha 10aad ee October Novemberna maxaa bisha 11aad shuhur shamsi waxa ku aadan tashriin waya tashriinu thani ayaa ku aadan muslimiintana dhulqicda bisha 12aad ugu dambaysa de miilaadigu waa December shuhur shamsiyana waa kaanunul awwal muslimiintana waa dhulxija oo bisha la xijiyo 12aad weey hadii la weydiiyo ka hor mataa wulid muhiimadda aan u baranay bilahan waa isticmaal inaad isticmaasho meesha ku aragtana aad fahanto hadii lagu yiraahdo mataa wulidta goormee dhalatay ayaa lagu weydiiyay mataa wulidta goormee ayaad dhalatay waxaa leedahay wulidtu waxaan dhashay taariikhdaadu dhammaystiran fi yawm al-arbica maalin arbaca ayaan dhashay الرابع من مارس 1999 الرابع من مارس بشي يعني أفرتي مارس 1999 ماشي سبب بدلي بلاهن دن ماشي سكوب بدلي ماشي مهم كمارس ماشي قرن تاد بدلي الرابع من يناير الرابع من فبراير الرابع من مارس الرابع من أبريل الرابع من مايو الرابع من يونيو ساس بدلي waxaa kaloo bedeli kartaa oo meesha ku bedeli kartaa الرابع من كانون الثاني الرابع من شباط الرابع من آذار qaabkaas u bedeli meesha raabicna tiradiyaad bedeliyo bisha 30 kaba badanayso haday u dhaafto 31 tagtaa biluhu saacay u badan meesha yani ال31 من مارس adii kartaa ال31 من مارس 29 من مارس 28 يعني 20 من مارس و29 تاسو اخرينيه ماشي يعني 20 سيده soo celinaya laakiin حادي iyo ثاني iyo رابع ثالث رابع خامس سادس سابع تاسع أي أساس استعماله أرجع عاشرنا أساس استعماله العاشر من مارس على طبنكي بش مارس أيان ده الشيء أساس طلع رياضة استعمال لكن ما ديست 21 ما ديست ما استعمال 21 أي استعمال ثاني 20 ثالث 20 يعني وحادي 10 ثاني 10 ثالث 10 رابع 10 خامس 10 سادس انت استعمالي ماشي ugu dambeysana waxaad ku bedeli un taariikhda dhalatay hadaad dhalatay 1999 waxa la 1999 labada kun aad dhalatay 2000 labada kun iyo 1 aad dhalatay 2000 ayaa leedahay 2000 waxaad dhalatay 2003 3 ama waxaad leedahay 2000 ساسد استعماليسا يعني مركي اد تاريخ اهان شيغيسو لكن لو كن اي سدحدا تيران مركا اخرينيسو و3 و2000 marka qaabkaasna ugu dhawaaqi kartaa oo yani raabici waa iska deyn kartaa 2004 dhalatay 2000 ayaad leedahay 5000 saas u isticmaal wixii 99 ka dambeeyana waa dibadel 98 dhalatay marka 1998 و97
waa 97 meesha kale hadaad badish 1800 dhalatay malaha ardada kuma jiraan isleeyahay 1800 dhashay mana jiraba yani waa dad waa hore dhintay okay halka uga gudub darsigan wuxuu ahaa darsi taariikhda aan ku baranayno wax badan inaan ka faa'iidaan rajeynaya lama yareysto waxaan oo kale lama yareysto laana adoo yani waxay ku qabsan karaan wargeysyo iyo inaad tarjumaan noqoto ama meelaha qaar ay ku qabsan karaan marka masdar ahaan ama buug ahaan guriga u dhigo waa ku anfici doonaan waa mahadsantiin inta darsiga 14 ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.